mudanayaal waxaan rabaa warbixin kooban oo idinka siiyo hindis sharciyeedka kaalma sharciyeedka oo maanta idin hor yaalla mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta idin hor keeno hindis sharciyeedkan waxaan ka bilaabayaa ujeedada xeerka ujeedooyinka ugu muhiimsan ee laga leeyahay xeerkan waxaa ka mid ah in la dhiso qaab hawleed tala bixin gargaarid iyo ka wakiil noqosho si loo caawiyo shakhsiyaadka ama muwaadiniinta aan awood u lahayn inay helaan adeegaas. labo in kaalmo sharciyeedku yahay qaabka lagu xaqiijin karo inay helaan dadka saboolka ah fursad cadaaladeed oo loo siman yahay. saddex in dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir ay taabageliyaan kaalmo sharciyeed la siinayo cid kasta ama muwaadin kasta oo aan dhaqaalo lahayn isku filan mudanayaal iyo marwooyin awoodda dastuurka iyo hindis sharciyeedkan maalmarinta iyo dhaqangelinta xeerkan waxaa si cad u jidaynaya qodobada dastuurka ku-meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee soo socda. qodobka 34 oo qeexaya dowladdu waxay siinaysaa difaac sharci oo lacag la'aan ah dadka aan awoodin bixinta kharashka dacwadda maxkamadda iyo dadka raadinaya oo u doodaya arrin la xiriirta danta guud. qodobka 35 faqradiisa 8 oo qeexaya qof kasta oo la soo xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu qabsado qareen difaaca haddii uusan awood u lahayna ay dowladdu u qabato. haddaba dhammaan qodobada dastuuriga ah kor ku xusan waxay nagu waajibinayaan meelmarinta iyo dhaqangelinta xeerka kaalmo sharciyeedka Soomaaliya oo hadda aqalka hor yaalla isla markaasna u baahan in la dhammaystiro habraacyadiisa sharci dejineed. xeerku wuxuu abuurayaa mudanayaal iyo marwooyin guddiyo farsamo oo fulin doona howlaha kaalmo sharciyeedka. xeerarka guddiyada kaalmo sharciyeedka waa 3 xeer: xeerka federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, xeerka dowlad goboleedka oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, iyo xeerka dowladda gobolka banaadir. asaasidda sanduuq kaalmo sharciyeed si dhaqaale loogu helo adeegyada mashruuca kaalmo sharciyeedka qaran waxaa la asaasi doonaa sanduuq dhaqaale oo u gooni ah kaalmo sharciyeedka oo uu meel mariyo golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si loogu maamulo adeegyo kaalmo sharciyeed. 2 ilo dhaqaale ee sanduuqa adeega kaalmo sharciyeedka qaran waxay ka imaanayaan meelaha soo socda: lacag ay u qoondayso dowladdu oo ujeedkoodu yahay fulinta qorshe hawleedka adeegyada kaalmo sharciyeedka. deeq hadiyad iyo waxyaabaha kale ee loogu hibeeyo adeeg bixinta kaalmo sharciyeedka. lacagaha la siiyo kaalmo sharciyeedka ee guddigu awood u leeyahay inuu isticmaalo si waafaqsan xeerkan ama shuruucda kale ee dalka. gunaanad mudanayaal iyo marwooyin senatarada aqalka sare ee sharafta leh si aan u wada gudanno waajibaadka dastuuriga ah ee naga saaran dejinta iyo mudnaansiinta dhamaystirka xeerka kaalmo sharciyeedka Soomaaliya waxaan si xushmad ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad meel marisaan hindisahan
وأن كود دركسنا هاي باهيدا بلشدين وقبضو